السلام عليكم. أمر diidadii ugu horeysay ee quraanka lagu sheegay waxa galay Ibliis oo Allah hortiisa isku kibriyay wuxuuna Ilaahay ka codsaday in loo seeto dheereeyo yacni in uu noolaado ilaa maalinka qiyaamada si uu u marin habaabiyo dadka ugana fogeeyo jidka Ilaahay wuxuu quraanku ka sheekeeyay baaqa shaydaanka ee ku aadan bani aadamka si uu u dhumiyo isagoo oo la siiyay wado walba oo uu ku gaari karo arrintaas sidoo Allah quraankiisa ku yiri isagoo ka sheekeynaya Ibliis ballanqaadkiisa ku aadan bani aadamka waxaan kaga imani xagga hore xagga dambe midig bidix badankoodna heli maysid iyagoo ku shukrinaya beenaaluhu run buu ka sheegay fulinta ballankiisa isagoo oo naf iyo nafiisba gelinaya arrinkaas adeegsanayana wax walba oo uu adeegsan karo hadafkiisa ugu weynna waa in uu diido dadka in ay alle u mahadnaqaan. في أول معصية وثقها القرآن تكبر إبليس على جبار السماوات والأرض، ثم طلب أن يمهله إلى يوم الدين ليضل البشرية ويغويها عن سبيل ربها. ما أوقعه. يحكي القرآن توعده واستنفاره المسبق لإضلال البشرية بكل ما أوتي من الوسائل المتاحة وبكل الدروب الممكنة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدق الكاذب في تنفيذ وعده، فهو الذي يحشد قوته وعدته وعتاده على مر العصور مستخدما كل ما استطاع أن يستخدمه، وغايته في ذلك أن يمتنع الناس عن شكر الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. muxuu kaliya awoodda u saarayaa shaydaanku in uu u diido in ay dadku alle u mahadnaqaan wuxuu leeyahay yaxye wuxuu og yahay shaydaanku in mooganaanta bini aadamku ay ka dhigayso mid ilowsan ama is ilowsinaya nicmooyinka Ilaahay